ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa ugu wanaagsan dadka kan alle subxaana wa tacaala ugu cabsi badan laa fadla licarabiyin calaa cajami carab baan nahay anagu carab baan kasoo jeednaa awowganaga yeman ka yimid anagu sidaa baan nahay wax ay ku tarayso ma laha carab acjam wax fadli uu ku leeyahay ma laha kullukum liaadam wa aadam min turaab dhammaantiin aadam baa ka timaadeen aadamna wuxuu ka ahaaday dhoobo taa markaad fahanto ee qalbigaada gasho dhulkaa isdhigaysa waxaad ogaanaysaa kaa inuu walaalkaa yahay haddii cadcaddahay ama hebel uu madow yahay ama uu dheer yahay ama uu gaaban yahay inaad mid tihiin midnimada waxay keenaysaa taas inaad mid tihiin in midabkeena uu kala duwanaado asalkeena mid inuu yahay ma diidayso taa marka haddaad ogaato waxaad ogaanaysaa qofka aada shaqada ugu timid ama kaa hoos shaqeeyo in laga yaabaa inuu kaa fadli badan yahay laga yaabaa inuu kaa fiican yahay laakiin qadarka ayaa wuxuu dhigay meesha oo uu ku baahan yahay maanta adiguu ku baahan yahay shaqaalahaada weeye marka laakiin dhulka isdhig hasqad qaadin yani adigu ma aha inaad tahay qof malag ah ama rasuul oo aan waxba qaadanayn nebi maxamed baa wax qaadanaya nebi maxamed baa dhulka isdhigay adigu yaa tahay sidaa daraaddeed hadduu ilaahay fadli ku siiyo oo ilahay subxana wataala ku gaarsiiyo in dhulka aas dhigto oo tawaaduca muujiso ayaa loo baahan yahay nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka sahl ibni sacdin asacdi uu warinayo bukhaari ku sugan nin baa soo maray mara rajulun markaasuu nabi ala slam maa ra'yukum bi hada maa ra'yuka bi hada war ninka ka warama waxay yidhahdeen ninka wuxuu yidhi min ashraf الnaas dadka kan ugu sharaf badan buu ka mid yahay waa nin reer hebel ah sharaf iyo maqaam buu leeyahay wa xariyun idaa khaطba an yunkax wuxuuna haboon yahay hadduu gabar soo doono gabar in la siiyo lagu maamuuso hadduu qof u shafaaco qaadana in shafacadiisa la aqbalo wa in shafaca an yushafac waa nin maamuus leh oo maaragtay sharaf leh oo maqaam leh nebigu waa iska aamusay nin kala soo maray markaasuu maa ra'yuka bi hada kanna ka waran markaasuu min fuqaraai lmuslimiin ninka muslimiinta fuqarada uu ka mid yahay hadduu gabar ku weydiisana in la siiyo ma mudna waayo nin wax haysta ma baahan nin reerkiisa la yaqaana ma aha nin waxa weye la garanaynin haddii uu qof u shafaaco qaadana shafaacadiisa in la aqbalin buu mudan yahay lannu maba la yaqaanba shafaacada uu dadka u shafaaco qaada isagaabaa wax haysan allahu akbar nebigu muxuu ugu jawaabay nebigu wuxuu ugu jawaabay wuxuu yihi hada khayru min dalika milu lard kaa wuxuu ka khayr badan yahay kii kale adduunko kan kaloo laga buuxiyey kana ka khayr badan malaayiin kaa ah kanba ka khayr badan marka saad u malaynayso ma aha falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa waxa way idinku ha isdahirinina ilaahay baa og yaa cabsi badan yaa alle subxaana wa tacaala aada uga cabsada ilaahay baa ogsoon sidaa daraaddeed dhulka isdhig oo dadka u sino wajazaakum allahu khayra wabaaraka fiikum allah